gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo dabcan saameeyay nolosha waayo haddii dowladnimadu ay meesha ka baxdo sida dhacdayba noloshii dadkoo dhanba waxa weeye waa meesha ka baxaysa ayadana isbedel buugaagtu waxay noqonaysaa in dad badan ay doonayaan inay mar un qaataan darajada qoraa marka qofkii oo laga yaabo inuusan waxba hayn oo dadka la wadaago inuu doonayo in maaragtay halkaas soo galo halka intaan ka bixin ayadan su'aasha kale oo isweydiinta badan maxdama aad waxa nagu soo batay dhamaantii buugaagta la qoro waxaad arkaysaa buugaag badan oo la qoray oo haddana magaca kor ku xusan iyo nuxurka gudaha ku jira aysan islahayn waxaad arkaysaa buug mawduuca gudaha ku jira uu jahawareer badan keenayo darafkooyin badan ee ku jiraan meelo badan article laga soo qaatay buugaag kale waxaad arkaysaa sheeko aad buug ku soo aragtay sideeda ayadan xataa la xusin cidii laga soo qaatay iyo meesha laga keenay aad ugu iimaanaysid buugii xoogaan alishas soo badatay qoladin akhriska iyo qoraalka talooyinka kulan wacan wanaagsan daawadayaasha qiimaha yaqayaha meel walba dunida afeeda ka joogtay kusoo dhawaada Mansoor Media waana Abdul Yusuf iyo barnaamijkeeni Waayo Arag oo aan ku soo xulan jirnay ashkhaaska bulshada dhexdeeda saameynta ku leh waxaana galabtay barnaamijka igala qayb qaadan doona Waayo Arag aqoonyahan waliba qoray buugaag badan oo rabnay halka inaan galabtay ku lafagurno dhacdooyinkii sababay buugaagtaas waxyaalaha bulshada dhexdeeda ka dhacay intii uu soo jeeday intuu maqlay iyo intii uu akhriyay intaba waa Maxamed Nuur Shire oo runtii qoraaga buugan aan gacanta ku hayno maantayto oo qayb kamid ah la faguri doono iyo waliba barnaamijyo badan oo kaleeto Maxamed soo dhaw waa mahadsantahay Abduuli Abwaan waa dhawahay oo ku faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan aad baan mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad waan kaaga mahadcelinayaa waan rajaynayaa marar badan inaan barnaamijyo runtii khuseeya dhacdada taariikhda iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira aan soo xusno intaynan dabcan alaaba waxa caada dhaqan oo ah intaynan bulshada aan u galin mawduucana inaan in yar kooban noogu celisid halkii dabaqadan in wax la qoro ama la akhriyo wax aad ugu adag bulshada dhexdeeda Soomaalida laga yaabo qofku inta marka hore hal buug qoro inuu yiraahdo qoraabanahay laakiin adiga waxaan soo joognay buugaag doora inaad qortay kuwa badan aad tafaftirtay akhriska qoraalka iyo halkii dabaqadan sidaad ku soo gashay dabcan labadan xirfadood akhriska iyo qoraalka waa laba xirfadood oo aad isugu xiran mana aha wax laba la kala oran karo waa isku mid waayo haddii aan wax la qori lahayn waxba lama akhriyin haddii aan wax la akhrin lahaynna waxba lama qorin marka waa laba maaragtay xirfadood oo mar walba isku xiran waana halka runtii bulshadeena Soomaaliyeed aad mooday inay aad iyo aad maaragtay gaabiska uga jiro afar arrimood baa jirta oo dadku ay ogaalka aqoonta xiriirka saas kale isugu gudbiyo waa akhriska iyo qoraalka iyo maqalka iyo hadalka afartaas lababa way isku xiran yihiin hadalka iyo maqalku way isku xiran yihiin halkaas waa halka Soomaalidu ay ku xoogan tahay waana bulsho hadasha isla markaas society waa bulshada hadal aad iyo aad isla markaasna wax dhageysigeedu waa aad u badan yahay waxaynu ku liidanaa dhinacan akhriska iyo qoraalka marka maadaama arrintan ay ku liidanay mudooyinkan dambana ogaa markii waliba ay aad maaragtay u soo bateen oo horumarka laga gaaray dhinacan technology-ga gaar ahaan maaragtay internetka iyo baraha bulshada iyo wacyigii baa kordhay marka halkaas ayaa maaragtay ay ka bilaabatay marka gaar ahaan markay bilowdeen bandhigyada buugaagta iyo sheekooyinka noocaas in maaragtay aad xoog loo saaro anuguna halkaas aan ka soo galay oo aan maaragtay aan qadii dalowgay ka darsaday dadku wax akhriyaan ahaa oo aan aad u jeclaa waagii hore xitaa yaraanteedii markii dambana waxaan bilaabay inaan wax qoro kadibna waxaan arkay baahidaas inay dad badan qabaan marka sidaasaan ugu dhiiriday waan u noqday markaa tababare dadka ku dhiirigeliyay inay wax qoraan waxa dheeray annaga ka bixin waxa dheerayd intii adigu aad ku jirtay akhriskiya akademiyada akhriska qoraalka waxa ku dheeray adigu inaad wax qortid inaad wax tababar ahayd waxa kamid ah xarumihii aad ka soo shaqeysay intaan anigu kala ka xasuusto aw jaamac iyo xaruntii ogaal ayadana
iyo xarumo kale oo dabcan jiray bal ayadana gadaal xusuusta inoogu celi runtii xarumahaas waa xarumo isku xiran أو جامع عمر عيسى وحرون كتال مقالة نيروبي وحال أساسي سنة كي لو كنت سدحي طبعا كي مركي ودنتي الله نحرسته أو جامع عمر عيسى وراجي وينا تاريخيا كي وينا الصوماليات وبرشة الصوماليات إن بدنا كميدا جارهان ذات كدانا يارنت أنا دن كارل لأنه آخر سكي قرالك إيه هذا قرنيان وحن كميدا هذات كي مركز حرون تاس أساس كذي قيبت كاها xaruntaasi markaa waa xarun wax akhris isla markaasna culture-ka iyo dhaqanka iyadana xooga saarta xaruntaasi ilaa hadda way shaqaysaa 10 sano guuradeedii ayaa sanadka hadda aynu soo dhaafnay August loo dabaaldegay sidoo kale waxaan maaragtay iyadana aan muasisiinteeda kamid ahaa dadkii aasaasay xarunta ogaal oo xarunta ogaal iyadu waxay si gaar ah ay maaragtay xiriir ula sii lahayd akhriska iyo qoraalka marka halkaas ayaan waxaan ku sameynay tababaro ku saabsan wax qoraalka sida wax loo qoro marka tababaradaas dad badan baa ka faa'iiday dhalinyaro badan oo markii dambe wax qortay ayaa maaragtay ka aflaxday marka hadda aniga ka Maxamed Nuur ahaan dadka aan tababarka u sameeyay ee wax qoray buugaagta hadda ay soo bandhigeen waxay marayaan 12 buug marka lagu daro kuwa aan waan qoray marka lagu daro kuwa adiga marka lagu daro iyo kuwa aan tababaray buugaagta ay soo saareen waxay marayaan hadda 12 waxaan rajaynayaa mar dhow inaan dhanka ka noqon doono oo kuwii aan tababaray kuwii tababaray halka intaan ka bixinay ayadana su'aasha kale oo isweydiinta mudan aad waxaan ugu soo batay maanta buugaagta la qoro waxaad arkaysaa buugaag badan oo la qoray oo haddana magaca kor ku xusan iyo nuxurka gudaha ku jirayo aysan islahayn waxaad arkaysaa buug mawduuca gudaha ku jirayo jahawareer badan keenayo darafkooyo badan ay ku jiraan meelo badan article laga soo qaatay buugaag kale waxaad arkaysaa sheeko aad buug ku soo aragtay sideeda ayadan xataa la xusin cidii laga soo qaatay iyo meesha laga keenay aad ugu imaanaysid buugii xoogaan alishas soo badatay qoladin akhriska iyo qoraalka talooyinka aad siisid maxaa kamid runtii waxaan oran karaa kacdoon walba marka hore waxa weeye waxyaabo badan buu iska wataa marka kacdoonkan in wax la akhriyo in wax la qoro ah runtii aad baa loogu baahan yahay looguna baahnaa marka anagu waxaan dhiirigelin jirnay dadku bal wax isku dayeen wax isku daygu waa arrin wanaagsan laakiin mar walba oo sidaas oo kale kacdoon u yimaado oo dadku ay arrin la dhacaan oo xiiseeyaan dabcan khaladaadkeedana way wadataa oo dad badan baa iska soo raacaya oo waxa la oran karaa marmarka qaarkood hadda waxa jiri kara wax la oran karo sicir bararka buugaagta marka heerkaas oo kala gaarto waxay noqonaysaa marka sicir bararka buugaagta waxay noqonaysaa in dad badan ay doonayaan inay mar un qaataan darajada qoraa marka qofkii oo laga yaabo inuusan waxba hayn oo dadka la wadaago inuu doonayo inuu maaragtay halkaas soo galo kadibna uu leeyahay anna way kan marka dhankaas khalad baa ka imaanayo dadkii dad badan oo xitaa waxaa jiri kara hadhow markaa ka caajisi doona inay wax akhriyaan waayo markay arkaan buug uu ku qoran yahay magac sidaas oo kale isla markaasna ay ku hungoobaan ninba saaxiibkay maalmood wuxuu igu lahaa buug baan akhriyo oo ku hungoobay marka saas oo kale ay dhacdo waxaa laga yaabaa dad badan inay ka niyad jabaan oo yiraahdaan waxa la qoraba armay sida u badan yihiin marka dhibaatooyin waa iska jiraan oo hadda akadeemiyada rasmiga u taagan oo hawsha qabanaysa iyana ma jirto wax lagu wado waa un dadaal qof wada iyo koox isu tagay iyo wax noocaas oo kale ah marka laakiin si guud arrintaasi waa arrin wanaagsan wixii qaladaad ku jirana dabcan waxaan dadka kula talinaa in ay maaragtay intaysan waxba akhriyin intaysan waxba qorin inay akhriska ku dadaalaan isla markaasna haddii rabaan inay wax qoraan ay qaataan tababarada iyo barnaamijyada maaragtay u sahli kara inay wax qoraan intaysan barnaamijka soo noqon doona oo runtii waxaan doonaynaa meelo badan inaan wada la fagurno habka akhriska iyo qoraalka iyo waliba dad badan oo baahiyo u qabay aan rajaynayno inay ka faa'iideysan doonaan laakiin mawduucana guud galabtiisa maxaa keenay kadeedka Soomaaliya oo ah buugan aan gacanta ku hayo oo qoray ustaad Maxamed Nuur Shire ayaan rabnaa inaan la fagurno bal ustaad Maxamed Nuur Shire
buugga la yiraahdo maxaa keenay kadeedka Soomaaliya waa dabcan buug ka duwan buugaagtaadii kaleeto xagga qirada markii la yiraahdo oo waxaan u maleynayaa waa 300 buug oo dhadhow waxa ku qoran macna weyn oo markii la fiiriyo humaagan kore halkan dusha sare oo dadku sida ka dheexan karaan ka muuqato burburkii iyo waxyaalihii dalka ka dhacay magaca oo macna weyn xambaarsan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya abwaan Cabdiweli runtii buuggan horta wuxuu soo baxay 2022 meel badan oo lagu soo bandhigay oo magaalada Nairobi kamid ahayd iyo magaalooyin kale oo dalka Soomaaliya ah oo lagu soo bandhigay buuggan muddo soconayay dabcan wuxuu ka hadlayaa mowduuca sheegtay oo ah maxaa keenay kadeedka Soomaaliya waayo waxaan u jeednaa oo dad badan ay ku dhaxdhasheen dad badan ay ku dhax barbaareen welina ilaa hadda laga sheekeeyo oo socda in dalka Soomaaliya dawladnimadiisii iyo wadajirkiisii iyo qarannimadiisii ay dhulka dhinaca dhigtay marka waxa laga hadlaa dawladnimadiis waxa laga hadlaa dib u heshiisiin waxa laga hadlaa wax qaybsi waxyaabo badan oo noocaas ah waxa laga hadlaa hal laakiin marka mushkilad la rabo ama dhibaato la rabo in laga hadlo waxa ka horeeya in la isweydiiyo horta dhibaatadan xagee ka timid xagee ka soo bilaabay marka la helo shaygan halka uu ka yimid runtii waxa sahlanaanaysa inay noo muuqan karto halkaas dhibaatadu ka timid marka dhibaatada xalkeeduna halkaas uu naga jiraa marka waxa keenay marka inaan buuggan aan soo saaro waxa weeye dhibaatooyinkaas faraha badan ee Soomaaliya ka jira gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo dabcan saameeyay nolosha waayo haddii dawladnimadu ay meesha ka baxdo sida dhacdayba noloshii dadkoo dhanba waxa weeye waa meesha ka baxaysa isbedel ku imaanaya inkastoo dadku nool yihiin wixii dhintay waa dhinteen Allah u naxariisto laakiin de waxaan ka hadlaynaa waxa weeye qaran dhan oo dhinaca dhulka dhigay oo weli macna aan yeelanin ama aan soo kabsanin marka saas oo kale dhibaatada noocaas jirto waa in la isweydiiyaa dhibaatada xagee nooga timid marka buuggan wuxuu xoog saarayaa dhibaatooyinka noocaas ah imise ayaan maxaan ka sheegi karnaa marka 15 cutub ka kooban yahay buuggan wuxuuna ka hadlayaa wixii keenay kadeedka Soomaaliya waana su'aal jawaabtiisana dabcan gudaha loogu tagayaa si kooban annagu galabta mawduuca waxaan ka sii xulanaynaa fahamka dawladnimada oo runtii kamid ah cutubiyadiisa mid kamid ah ay ku xusan tahay faham la'aanta dadka Soomaaliyeed markaad fiirisid dawladdii xilliga xorriyadda la qaatay waqooyi iyo koonfurba ay qaateen 60kii 1960kii ilaa iyo 1991 dawlad baa dhisnayd hadba nooc ay rabto mid rayada iyo mid military ba soo marto 1990kii ilaa maantaytana waxa lagu jiraa un ka caakuf madaxweyne kastoo yimaada dawlad kastoo timaada waxay la timaadaa ififaala iyo hadal ah waan soo kabsanaynaa waxay baxdaa iyadoon wax farqiyo weyn oo isu dhaxayn halka ay shalay joogtay waxa la oran karaa faham darrada Soomaali ka haysata nidaamka dawladda